مسؤوليين وزارة waxbarashada barbaarintii oo sayniska Soomaaliland ayaa kulan la qaatay maamulayaasha dugsiyada gaarka loo leeyahay ee barafadka waxaana kulankaasi ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda waxbarashada wasiiru dawlaha agaasimaha guud gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Maroodijeex agaasimaha waaxda waxbarashada tooska gudoomiyaha waxbarashada degmada Hargeysa madaxa qorsheynta gobolka Maroodijeex wasaaradda waxbarashada mudan iyo marti sharaf aad u tiro badan ugu horeyntii kulankaasi waxa ka hadlay mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee gobolka Maroodijeex gudoomiyaha gobolka Maroodijeex gudoomiyaha degmada ee Hargeysa agaasimaha waaxda qorsheynta ee gobolka Maroodijeex waxaanay ku dheeraadeen ahmiyadda shirkani uu leeyahay dugsiyada sare ee dawliga ah iyo dugsiyada sare ee gaarka ah waxaan u kala saarnay hablo iyo inamo dugsiyada dawliga ah inamadu waa 7434 wiil waa dugsiyada dawladda halka ay habluhu ka yihiin 4645 hablood wadartooda guudna ay tahay 12970 arday dugsiyada barefadka inamada 9810 wiil 9810 wiil halka ay habluhu ka badan yihiin inamada barefatiska ah oo yihiin 10173 hablood wadartooda guud marka la isku daro waa 19983 arday iskuulada dawliga ah iskuulada barefadka ah ee sare kale way badan tahay xogtayda damaantood dhan hadaan wasiir haysto ma dhamaanayso marka intaas ku soo gabagabeynaya insha Allah runtii dugsiyada gaarka loo leeyahayna waxbarashada asaasiga ah iyo tasarrub waa dhigtaan taasarun baa waxa ka mid yihiin waxbarashada asaasiga ah ee meel walba la gaarsiinayo maadaama hoos timaadaan wasaaradda waxbarashada barbaarinta iyo sayniska runtii iskuulada gaarka loo leeyahay qaar kamid ah ama midar kamid ah waxa mararka qaar dhacda in aanay raacin manhajka Soomaaliland in la raaca waa waajib saaran iskuul kasta oo gaar loo leeyahay waxaynu xiriir dhow aan la leenahay maamulayaasha iyo macallimiintaba oo aan kormeer ahaan inta badan ku kormeerno attendance ugu dambeeyana aan ka ururinay imakana waxaan rabnaa inaan diyaarino foomamkii lagu galay imtixaanka taasoo wasiirka aanu deyn doono hawsha sida loo qaabeeyay iyo qaabka loo gali doono imtixaanka iyo sida aad uga talin doontaan iyo cidda loo xil saari doono haddii la yiraahdo aad iyo aad baan saacada wasiir iyo agaasime guud idinku soo dhaweynaynaa dugsiyada private-iska ah inagoo maalintii horena shirkeenu ahaa dugsiyada public ahaa halka waxay noo fadhiyaa ugu yaraan 200 dugsi dhexe ah iyo dhowr iyo 850 dugsi sare ah oo private ah agaasimaha waaxda waxbarashada tooska Ahmed Ismaaciil Cabdi oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa sharaxay kulankan ay mas'uuliyiinta wasaaraddu la qaadanayaan iyo ujeedada uu leeyahay kulankan waxa weeyaan wax ka horreeyay kulan hore oo aan la yeelanay maamulayaasha dugsiyada dawliga ah marka kulankii uu daba jooga kulankanna warran waa in isbarasho oo wasiirka wasaaradda iyo madaxda sare ee wasaaradda in waxa weeyaan isbarataan marka labaad waa dirdirgelinta arrimaha waxbarashada qodobada marka shirkeena kuwaas ugu muhiimsan warran waxaan doonaynaa ka wasaarad ahaan in challenge iyo isku xirankii wasaaradda iyo dugsiyada hadday noqonayso gaar iyo hadday tahay kuwa dawliyaba in la isku xidhmo marka warran awoodda waxaanu saaraynaa in aynu systemkii iyo waxa weeyaan hagaajino iyo isku xidhnaantii wasaaradda waxbarashada iyo dugsiyada ka dhaxaysay qaar ka mid ah maamulayaasha dugsiyada gaarka loo leeyahay ayaa iyaguna madashaasi ka hadlay horta wax qabadka koowaad waxaan leenahay arday wanaagsan aan soo saarnay leenahay arday wanaagsan iyo tacliin wanaagsan iyo macallin wanaagsan sida lagu leeyahay oo su'aasha isweydiina anigu waxaan sheegay qabyada wasaaradda wixii inaga doonayo waa gudina way samayn doonaa shaqo qabyada wasaaradda waa madaxdeedna hadayna aanu sheegin wixii qabyaa waxba deemayna aanu sheegin marka qabyada waxa kamid ah macallin wanaagsan waa in macallinta la tababaraa barta waxa qaadmi kartaa waxa weeyaan in kormeerkii la xoojiyo oo la soo ogaado dhibaatooyinka ka jira iskuulada xafiisyada iyo waxa wasaaraddu si fiican u shaqeeyaan laakiin qaybta kormeerku gawaadho u baahan tahay dhaqaale u baahan tahay aqoon bay u baahan tahay waana barta lagu ogaan karo dhibta jirta marka in kormeerka wasaaradda la xoojiyo
gunaanadkii kulankan waxaa ka hadlay Professor Ismaaciil Ducaale Yuusuf wasiirka wasaaradda waxbarashada wasiiru dawlaha Maxamed Yuusuf Faacul iyo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Cabdiraxmaan Xuseen Xirsi waxaanay ka hadleen in ay muhiim tahay in dhammaan bahda waxbarashada ay kulan la qaataan isla markaasina ay maanta kulan la yeesheen maamulayaasha dugsiyada gaarka loo leeyahay halka toddobaadkii horena ay kulan la qaateen maamulayaasha dugsiyada dawliga ah farxad bay noo tahay maanta inaanu dila kulanno waxa laga yaabaa inaanu idinka yara habsaanayo kulli hawlaha wasaaradda yaallay waxaan u maleynayaa konton maalmood weli maan gaadhin intaan xilka hayay warshu waxa weeyaan inaan aragno stakeholderska dadkan ay wax ka dhexeeyaan ee hawshu ka dhaxayso waxaan aaminsanahay in hawle naga dhaxayso hawshay naga dhaxaysaana waa waxbarasho waxa isku xidhayana waa arday xidhayna arday iyo macallin buu noqday waan jeclahay maamulayaasha hadday joogaan iyo hadday maqan yihiin baanu saxaafadda u marnay waxa ka mid ah iskuuladooda hortooda inay ku sameeyaan askarta jiifta si xawaaraha baabuurka soo maraya uu dhigmo kala shaqeeyaan gudoomiyaha degmada iyo gobolka iyo degmada iyo gobolka maayirada ayaan kala shaqeynaya wasaaradda gaadiidkuna hawsha qayb bay ka tahay oo way la socotaa waxaan doonaynaa in iskuul wixii sharciyada wixii wasaaradda gaadiidkii iyo maayiradii iyo gudoomiyaha degmada wixii way shaqeynayaan oo la dhameynaya wixii sharciga ku xidhan laakiin arrin weeyaan ka go'an xukuumad ahaan in waxaynu rabnaa in arday wanaagsan aynu soo saarno markii hore barbaarintu way ka maqnayd wasaaradda laakiin imika barbaarintii baa lagu soo daray waxaan dul istaagayaa uun barbaarinta waxaan doonaynaa dawli iyo iskuul gaar loo leeyahay labadaba barbaarinta inaynu isku mid hawsha aynu maxaa yeelay meel ka wada istaagno oo haddii ilaahay aynu xoojino sidii aynu arday isku mid ah aynu soo saarnayn marka hore inaad maskaxda ku haysaan sidii la idinla shaqayn jiray si ka fiican mooy si ka adagna la idinla shaqayn waxaa kaloo muhiim inaad qalbiga ku haysaan waxyaabaha sharciga la yidhaahdo ilaalintiisuna waajibna wada saaran yahay macnaha oo wax tanaasulaad aanu ku jireen ardayga barayfadka jooga iyo ardayga babliga joogaana way noo siman yihiin jadwalka idin deganna idagaa si fiican u yaqaana courseska bixisa aniga si fiican u yaqaana markaa saacadaha iyo syllabuska inta ka inta isku eegtaan ama manhajka inta ka hadhay in la iswaafajiyaan nifir la waa muhiim taasina